إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون maanta waxay markaasi bahda saxaafadda iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeedba ay ugu suntan tahay maalin madow markii uu ka baxay haliyay iyo geesi suxufi ah Allah u naxariistay Cabdifataax Macalin Nuur Qays oo runtii ahaa qof runtii wanaag ku suntana oo ahaa aqoon-yahan da'yar mihnada saxaafaddana runtii bartay kuna shaqeeyay muddo aad u dheer kana qayb qaatay dhismaha warbaahinta Soomaaliyeed guud ahaan isagoo warbaahinno kala duwan soo maamulay haddana waxa uu ahaa agaasimihii telefishinka Somali Cable ee magaalada Muqdisho marka maanta waxaan dhihi karnaa waxay ku suntan tahay maalin madow oo ay u tahay bahda saxaafadda Soomaaliyeed maadaama ay waayeen qof runtii aad qiimo u leh aqoon-yahan ah ka qayb qaadanaya inuu istaagsanaa difaacidda iyo horumarinta guud ahaan bahda saxaafadda Soomaaliyeed SJS ahaan runtii aad bay noo taabatay annaga sababtoo ah maalmihii la soo dhaafay wuxuu aad noogala shaqeynayay sidii uu cadaalad u heli lahaa xogayaheena warbaahinta iyo xuquuqda aadanaha mudane Maxamed Ibrahim runtii bulbul oo markii dambe maxkamaddu ay ku weysay wax dambi ah oo ay xuriyadiisa ay dib u soo celisay sidoo kale waxaan ku xasuusan doonaa walaalkeen saaxiibkeena Qays sidii uu qayb qaadan jiray waligiisaba arrimaha horumarinta saxaafadda kaalintii uu ku lahaa ee lama ilaawaanka ahaa xeerka saxaafadda wali dooda ay ka taagan tahay runtii kaalin mug leh ayuu ka qaatay difaacidda xuriyatul qowlkana waxa uu kaga jiray afka hore ayuu kaga jiray runtii wayna taabatay geeridiisa maanta guud ahaan qulubta Soomaaliyeed ayay taabatay maadaama uu ahaa qof wax badan runtii ku soo kordhiyay geedi socodka Soomaaliyeed ee xagga dawladnimada iyo xagga dhismaha isagoo afkiisa iyo qalinkiisa iyo aqoontiisaba runtii ka qayb qaadanayay sidii dalkan loo badbaadin lahaa marka aad iyo aad ayaan ugu xunnahay mas'uuliyiinta Somali Journalist Syndicate waxay tacsiye tiiraaya leh ay u dirayaan ehladii qaraabadii saaxiibadii iyo guud ahaan bahda saxaafadda uu ka baxay Allah u naxariistay walaalkeen Qays oo maanta gurigiisa rasmiga ah u hoyday marka inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun anigoo ku hadlaya magaca madaxweynaha SJS mudane Maxamed Ibrahim Pakistan xogayaha guud ee ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed mudane Cabdullaahi Axmed Muumin xubnaha kale ee saraakiisha SJS waxaan mar kale tacsiye tiiraanya leh aan u diraynaa qoyskii iyo walaalihii iyo suxufiyiinta uu ka baxay walaalkeen Qays dhinaca kale SJS waxay ku baaqaysaa in ama ay ka dalbanaysaa dowladda Soomaaliyeed in baaritaan marka ay ku samayso qaabka u dhacay dilka walaalkeen Qays oo runtii xalay ku geeriyooday weerar ka dhacay maqaaxida Blue Sky ee magaalada Muqdisho marka waxaan leenahay dowladda federaalka Soomaaliya waa in baaritaan aad ku samaysaan oo aan ka codsanaynaa in baaritaan marka ay ku sameeyaan dilka walaalkeen Qays inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun